xerada Inji waa xero ay ku noolaayeen in ka badan 170 qoys kuwaasi oo isugu jiray dad barakacyaal iyo dad danyar ah dadkaasi ku noolaa xerada ayaa ku noloshooda ku maareen jiray siyaabo kala duwan oo adag xerada waxa ay ku taalnaa dhinaca galbeed ee magaalada Boosaaso ama wadada isku xirta garoonka magaalada iyo hotel Huruuse bishii December ee sanadkii tagay 2014 ayaa maamulka degmada ku amray dadka degan xeradaasi inay isaga guuraan maadaama ay tahay xarun dawladeed maanta oo maalin Isniina oo taariikhdu ku beegan tahay 2 bisha labaad sanadka 2015 ayaa maamulka gobolka kan degmada Boosaaso iyo taliska qaybta booliska gobolka Bari oo iskaashanaya waxa ay ololo burburina ku qaadeen xaruntaasi gudoomiyaha gobolka Bari Cabdisamed Maxamed Galan oo warbaahinta kula hadlay goobta ayaa sheegay in xaruntan ay ahayd xarun dawladeed isla markaana maanta wixii ka dambeeya laga dhisi doono dhisme dadka iyo dalka lagu kaydin jiray xabkaha iyo faleenka dawladii dhexe ee Soomaaliya iyo raashinka kaydka ah intii dambe oo burburka ahaydna waxay ahayd meel ay dadka danyarta ay deganaayeen maanta wixii ka dambeeyana haduu Ilaahay idmo waxay noqon doontaa meel adeeg ballaaran oo bulshada wada gaarta lagu qabto Xasan Cabdalla Xasan oo isna ka hadlay goobta ayaa sheegay in dadka la dejin doono bariga magaalada Boosaaso isla markaana guryo loo dhisi doono qorshaysana waxa weeye meesha la geenayaa waa bariga Boosaaso meelaha waana dhul hadda si ku meel gaar ay u degayaan waxaanu ku heshiinay anaga iyo dadka kaaliya caawiya oo heedaha ku sheegayo waxaanu ku heshiinay inay dadka caawiyaan qaar ka mid ah shacabka deganaa xerada Inji ayaa iyagana dareenkooda ka hadlay annagu hadii aanu nahay dadka masaakiinta oo Inji degan maanta baanu nahay isma qaadi karno meel aan teen kar lama arko guryo ma haysano hooy ma haysano meel aan u ruqaansanana ma naqaan ciridaanu taagana saaka aroorti waxa nagu soo waabaristay annaga guryahayaga joogno canshaada carruurtu u dabanayno ciidamo iyo waxay noo yimid niman duba wato adduunka burburinayo guryihii dhulkay dhigeen wayna xasuuqan carruurta qaar baa hadda aan weyno naga faxastay sirqooyin baa noo jooga dad waalan baa noo jooga dad curyaana noo jooga qaar baa skor ku kacdo guryaha hadda noo rafanaya waxa weeye hadda dawladeena waxa dawladda shacab baa isa lama arki jirin dawladeedu waxaan ka codsanaynaa in ay maxaan ku raynoo meelayso ay noo timaado hoos noo eegto intii islaana ummadda Nabi Maxamed oo uqaasha leh oo wax garad kale oo hay'ad leh oo maxaan ku raay intii islaana oo diirinaysa ummadda diirinaysa in ay noo yimaadaan oo goobta aan joogno meesha aan fadhino ogaadaan baan intaasaan ku goynaa waa joogan waa waalay Cabdiraxmaan Cabdi Maxamed Home Cable TV magaalada Boosaaso